بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صحافة شعب غير سومال لامبا آدي آدبان وسلام يا waxaan doonayaa maanta inaan wax yar ka iraahdo arinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan Addis Ababa iyo maalmihii ugu dambeeyay arrimihii ka dhacay wixii aynu la soconay sida aan la socono 29 sanadood wax ku dhawaayay iminka Soomaaliland intii ay jirtay ay ahayd taariikh ahaan marka laga soo bilaabo markii dawladda Siyaad Barre ay duntay ee Soomaaliland ay xornimadeeda dib u soo noqotay 29 sanadood kadib wax xaqiiqo ah shacbiga reer Soomaaliland inaanay ku filayn madaxweyne iyo sida loo soo dhaweeyaa inaanay ku filayn shirarkii aanu tagnay guul baa laga gaaray inaanay ku filayn hadallo aan sameynahaynin nuxur lagu qiimeeyo ama lagu garto waxay caadaysteen dhammaan madaxda Soomaaliland marka ay safar tagaan dadka ay matalayeen ay u ceelaliye tagaan ama ay shaqo soo qabanayaan marka ay soo noqdaan inaanay wax xoga siinin marka laga yimaado inay yiraahdaan annaga hodheelana la dajiyay annaga si fiican naloo soo dhaweeyay wax iyaga iyo wixii marka loo qabtay ku saabsan shacbiga reer Soomaaliland waxa ay jawaab uga baahan yihiin sugayaan arrimahoodii aviation-kii hawadu halka uu ku dambeeyay iyo sida uu yahay waxa ay jawaab uga baahan yihiin sugayaan arrimaha la xiriira socdaalka iyo marka ay safrayaan sidii ay dawladnimo u heli lahaayeen cid ay ka sugayaan dawladnimadaasina waa madaxda maanta joogta ee mas'uuliyiinta qaranka waxa laga yaabaa inaanay iyagu dhibaatadaasi dareemin laakiin hooyada xanuunsata ee u baahatay in India ama meel kale caafimaad iyo dhakhtar u tagto dhibta ay u marto ama aabaha xanuunsada dhibta uu maro waxaynu wada ognahay marka dawladnimada iyo baahida aynu u qabno iyo inta ay leegtahay waxaynu isku cadeeyno aynu isu sheegayna ma Somaliland madax badan oo kamida madaxdeedu waxay caadaysteen inay dadka majara habaabiyaan inay sawirro been u soo galaan bishan maxaan ku dhahdaa aakhirkii bishii hore ayaa waxa aan tagay Brussels dadkii aan la kulmay mid kamida oo maxaan ku dhahdaa dadkan oo wax noo facilitate gareeyay waxa uu igu dhaartay inuu arkay madax reer Somaliland oo maalin dhan xarunta baarlamaanka Europe maxaan ku dhahdaa ku meeraysanaysa si ay u helaan fursad ay sawir ku galaan dabadeetana sawirkaasi ay dadka shacabka inta ugu soo diraan ay ku majara habaabiyaan ay been ugu sheegaan Somaliland been kuma dhismi karto aragtida Somaliland been laguma meel marin karo sida ay hadda tahay beenta ku dhisanna laguma sii wadi karo oo laguma sii socon karo waxaynu ognahay Somaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda maalinba maalinta ka dambeysay inay hoos u soo dhacaysay barigii hore Janday Fraser baynu ogeyn inay Hargeysa timi waxaynu ogeyn in madaxweynihii Daahir Rayaale Kaahin uu intaasoo madaxweynayaasha dunida la soo kulmay waxaynu ogeyn sidoo kale Siiraanya inuu isaguna madax badan oo ilaa maxaan ku dhahdaa David Cameron ka Ingiriisku kamid ahaa uu la soo kulmay arinta Somaliland waxa barigii hore loo oran jiray waa arin u taala Afrika laakiin waxaad moodaa maanta in arintii hoos halkii looga soo riday oo la inagu yiraahdo waa arin u taala maxaan ku dhahdaa Soomaalida arin u taala weey halkaasina waxa ay tahay qorshe xumaanteena iyo iska socodkeena iyo xukuumadeena oo aan wax qorshe iyo istiraatijiya oo cad oo arrimaha dibadda aan lahayn wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya sida aan la socono waxa weeye waa wax inagu aynu dalbanay caalamkuna uu ka shaqeeyay sida ay wada hadalladaasi u dhici lahaayeen markii 2012kii ay bilaabmeen madaxweynaheena hadda jooga ayaa intii dhaweeytay waa Addis Ababa tagay waxa la inoo xaqiijiyay oo iyaguna inoo xaqiijiyeen in uu la soo kulmay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo kulanka wasiirkii arrimaha dibadda markii uu soo noqday ee idinku wada joogteen ee uu hadlayay sidoo dadka ugu sheegay iyo sidoo dadka ugu waramay waxaan isleeyahay wax dadku geeyaan ma wax
shacabkii reer Soomaaliland ay ka gayaan maaha wasiirkoodii arrimaha dibadda intuu isa soo taago inuu yiraahdo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ra'iisul wasaaraha la sii macsalaameeyo la sii salaamayay ayuun baan ku kulannay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya maaha basaskii qarayray ilaa Sayladda maxaan ku dhahdaa subaxdii dilaaliinta iyo hiliblayaasha sii kala haya ay sida maxaan ku dhahdaa aan ku talagalka ahayn ay isugu soo horbixi jireen deetan isku sii warsan jireen waxa xafiis protocol iyo nidaam dawladeed leh cid aan la isugu tala galin inay sarkaana aanay sarag qol maaha iyo laba qol oo maxaan ku dhahdaa cid kasto soo gashaa isku arkayso markaas waxa ay muujinaysaa in ama waxay qarinayaan oo qarsoon oo ay dadayaan ay jirto ama ba waxay yiraahdaan aanay garanahaynin oo qorshe la'aan ay tahay waa laga sugayaa in arintaasi ay sharaxaad ka bixiyaan waa laga sugayaa arintaasi inay daahfurnaan noqoto waa laga sugayaa in shacbiga reer Soomaaliland uga waramaan kulankaas iyo wixii ahaa iyo wixii laga wada hadlay iyo wixii ka soo baxay intaba waxaynu doonaynaa inaynu ogaano ajandaha kulanku muxuu ahaa kow maxaa laga wada hadlayay xaq baynu leenahay shacbiga reer Soomaaliland baa xaq u leh xisbiyada siyaasadda xaq u leh golayaasha kale ee qaranka ayaa xaq u leh waxaynu u baahanahay inaynu ogaano muxuu ahaa qorshaha iyagu ay la tageen balaanka iyo qorshaha ay meesha la tageen muxuu ahaa waxaynu u baahanahay inaynu ogaano maxaa ka soo baxay ee la isla gartay ee laga wada hadlay waxaan u baahanahay inaynu ogaano halkaynu uga dhaqaaqayna halka aynu imika taaganahay wada hadallada kadib iyo saraga kadib maxaa ka dambeynaya ee maxaan ku dhahdaa loo dhaqaaqaya qarankan dantiisa iyo horkiciisa iyo horsocodkiisu sir maaha waa in dadka la wadaago hadii aan wax xun aan la qarinahaynin asalan bana wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waa inay noqdaan wada hadallo heer qaran lagu hogaamiyo waa inay noqdaan wada hadallo daneeyayaasha siyaasadda iyo gobolada Somaliland oo dhamay ay ku jiraan oo ay ka dhex muuqdaan waa arin aad u muhiim ah waa masiir umadeed suurtagal maaha inuu madaxweynuhu qof kula soo shiro ama madaxweyne kale kula soo shiro oo kula dhuunto oo marka uu soo noqdana aanu xoga inaga siinin wax midhaah ay dhalaysaana ma jirto wax shacbiga reer Somaliland iyo daneeyayaasha kale siyaasaddu ay aqbalayaana run ahaantii ma aha madaxweynaha iyo dawladdu hogaaminta ay leedahay arinta wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya marka laga hadlaayo laakiin tiisa arin ay kaligood go'aan ka qaadan karaan maaha waa sababta madaxweynuhu hadduu hal heshiis oo yar oo ganacsi xataa soo galo loo yiri baarlamaanka waa inaad geysaan ilaa aad baarlamaanka geyso wax rasmi oo heshiis ma noqonayo macdala waaba arin masiirkii ummadda oo dhan ah oo maxaan ku dhahdaa ummaddu ay doonayso inay warkeeda wada hesho sidoo kale waa inuu jiraa qorshe cad oo lagu waajahayo arinta wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ilaa hadda sida inoo muuqata wax qorshe ah oo cad oo dejisan oo xukuumaddu ay leedahay ma jiro anaguna diyaar baan u nahay xukuumadda inaan maxaan ku dhahdaa kala shaqeyno oo ka caawino wixii tamarteedii aqoontayada ah habka wada hadalladaasi loo galayo iyo sida looga shaqeynayo maadaama oo ay arin qaran tahay laakiin tiise arinteenu waa inay kaleer noqotaa waa inay cadaataa waa inay wax la isla wada og yahay noqotaa waxa xaqiiqo ah maanta arinteenu waxay taagantahay Soomaali la hadla halkaynu tagno iyo cidaynu tagno iyo cidaynu la hadalaaba waxay tiraahdaa Soomaali la hadla Soomaali sidee baynu la macaamilaynaa su'aasha aynu maanta u baahanahay in laga jawaabo oo dawladdu ay ka jawaabto oo qorshe qaran aynu ka yeelano taaweeye taynu u baahanahay inaynu eegno jawaabteenu noqon mayso inay noqotana maaha maxaan ku dhahdaa caytan maxaan ku dhahdaa Twitter-ka iyo meelahaasi laga sameeyo taasi macna ay sameynayso iyo waxay soo kordhinaysaa midna ma jirto laakiin waxaan u baahanahay inaynu ummadnimo muujino wanaag muujino niyad wanaag muujino sidoo kalena aynu qorshe cad oo loo wada dhameystiran yahay aynu yeelano aad iyo aad baa u mahadsantihiin si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli kanaalkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka